dhalinta saxaafadan kalsoonida suuqa shacbiga sinaanta loo guntado sifaya laba afle dhalinta saxaafadan kalsoonida suuqa shacbiga sinaanta loo guntado sabolka xaqii u dhicin waxay soo ururiyaan sida wax u tari lahay waxay soo ururiyaan sida wax u tari lahay sida samigo lumin sabolka xaqii u dhicin waxay soo ururiyaan sida wax u tari lahay waxay soo ururiyaan sida wax u tari lahay tay u samran darta bushay samahago dafliibay ku silcaan waxay surmiyaan darta beershiya ka hadli doona dhaqanka iyo warbaahinta xiriirka ka dhaxeeyana xasan cabdimadan baa ka hadli doona hadal marka la yidhaahdo qof waliba wuxuu la soo diyaargaroobay buu odhan doonaa dabeeta wixii su-aale ka dhashayna wadaagi doonaa halkaasaynu ka curin doonaa marka in laga weeleeyo wixii hadba aynu u baahannaha inaynu kala baxno dhammaantiin aad iyo aad baa umahadsantihiin mar hadduu maxamed xasan cali wajaakan fadhiyo inuu ugu da-an weyn yahay inteeda halkan fadhida waxaan u malaynayaa haddii aan af soomaaliga markaa ayaanan ka teginay ereyga ugu wanaagsan ee saxaafad sarqaaba inuu af soomaaliga yahay waa weriye ereyga weriye erey kaga macno wanaagsan saxaafad marka la sheegayo oo afafka aan ugu hadloo dhan adduunka u malayn maayo inu jiro haddaan siyaasad galo maxay tahay siyaasadii ama politics waxaa laga yaabaa dadka i dhegaysanaya ama muuqaalkayga hadda arkaya ama halkanba fadhiyaa inay u yaqaanin khiyaamo siyaasadda waxaa loo yaqaanaa khiyaamo hebel waa siyaasi haddaad maqasho waa nin khaa'ina oo beenaala ah oo saarubaa xiirtay oo xiribaa xiirtay oo waxba iska ilaalin ayay dhaqankeennu yahay haddii qof khiyaamaya waxuu leeyahay waan siyaasadii waan siyaasadii siyaasaddu macaadallah sidaa maaha macnaha siyaasaddu nooceedu ma aha taa siyaasaddu waxay tahay intaynaan siyaasiga u gelin waa nidaam qorshe la dhigtay lagu gaadhayo nidaam qorshe la dhigtay lagu gaadhayo weeye ama qof ha ku gaadho ama dawladii ha ku gaadho ama koox ama hay-ad hadda wasaaraddu weliba siyaasad bay leedahay oo ah ta ay ku gaadhayso hadafka ay dhigatay iyo ujeeddadeeda dal waliba siyaasad buu leeyahy siyaasigu waxa weeyaan markaa isaguna macno kooban oo leymaana markaan idinku sarxo waa qof cod lagu doortay oo xil u haya dal qof cod lagu doortay ma aha hadda qof la magacaabay waa qof cod lagu doortay oo xil u haya dal ama urur ama organisation ama hay-ad kaasaa siyaasiyaysna saxaafiga macnihiisana way maganta hadda inagu gacanta ku wada hayno khubaradii baaba joogta culimada ahayd ee iga wada aqoonta badnayd oo ah waxa weeyaan isna ninkaa labadaa u dhaxeeya ee warka gudbinaya xidhiirka ka dhexeeya haddaba muxuu yahay haddaan si kooban u hadlo xidhiir ka dhexeeya wuxuu yahay sidii loo wada gaari lahaa hadafkaa meeshaa la wada dhigtay inuu qofkii ballantii uu qaaday ka leexday iyo inuu ku wado kii iftiiminaya weeye waa ka iftiiminaya marka had iyo jeer inuu waxa xunuun sheega maaha saxafigu waxa weeyaan wixii waa la wadaa hawshii halkaasay gaadhay intaasaa ka dhiman wixii ay ahayd ee war ahaa ee ku saabsanaa ayuunbu gudagelaya waxaa markaa dhexdooda mara haddaan saxafigana sheego isna se dadkeenna qaar u yaqaaniin waxay yidhaahaan oo soomaalida ku mahmahadaa runsheeg waa belasheeg waxay yidhahaan runsheeg waa belasheeg anugu mahmahdaa wax badan baan ka idhaha waxbaa ka qaldan waayo qofka runta sheegaa waa qofka dadka u sharafta badan uguna wanaagsan uguna haybadda badan laakiin halkii laga sheegi lahaa iyo wakhtigii la sheegi lahaa iyo habkii loo sheegi lahaa qofka qaldaa belasheega qofkaasaa belasheega markaa saxafiguna waa runsheeg saxafigu waa runsheeg waa halkay objectivityga yidhaahaan waa inuu noqdaa qof runta sheegaya
waxaa jira markaa saxaafadda dhexdeeda iyo siyaasiga iyo dadweynaha waxa u dhexeeya iyana wax la yidhaahdo birmageydu oo dal walba dhaqan leeyahay oo afka laga dhowraa jira oo aan la sheegi karin laakiin hadday kugu kalifladana loo sheegi karo habka ugu habboon ee ugu wanaagsan waxaan u malaynayaa in xilka u weyn ee saaran saxafigu uu yahay ee xidhiidhka u dhexeeya isaga iyo siyaasiga ay tahay mas-uuliyad mas-uuliyaddaasi waxay tahay in waxa dhabta ah ee uu arkay sida ugu wanaagsan ee ugu hufsan uu sheego oo u fiican waxaa sharxay ninkii shalay halkan ka hadlayey ee ahaa kenyaanka magaciisii ma karayee ya hooye waaba eray soomaaliya ninkaasi wuxuu sharxay saxafiga labu ka dhigay wuxuu yidhi saxafi wataniya patriotic waa saxafi wataniya oo wax walba ka hormarinaya wadaniyaddiisa somalilan ha noolaato baldhaha qaar bay ka soo bixilaaday somalilan ha noolaato waxa way horta marka hore inay qalbigaaga ku jirto kalgacalka somalilan adoo runta sheegaya adoo runta sheegaya marka waxaa jira wax birmageyda ah oo ummaddani ay kulligoodba isku wada raacsan tahay inay hirgeliso waxaa inaad ka hor timaadaa maaha run sheegid ee waa bala sheegidtaas xitaa haddaad aragto taasoo kale waa bala sheegid tusaale waxaan u soo qaadanayaa maandhuta qaladii naga dhacay oo ahaa in wargeys ka soo baxa magacaabi maayo waa la wada akhriyey magaaladeennan shirkii madaxweynaheennu uu kula qaatay tago jaale ayuu inankaasi taytal ka dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse bixi cabdi oo dhiggiisii mustafe maxali cagjar kula kulmay halkaa ereyga dhiggiisaan ma la fahmino waa maxay markaan arkay iyo xagga farsamadaba aan u tago waan usoo noqonaya maxamed xasan cali weji aan u tago xasan cabdi madar dabcan waxaa laga yaabaa mawduucii waynu ka baxaynaa mid kaleynu gudbaynaa laakiin si aynu isugu dhex wadi karayno maxamed xasan cali su-aal baan u qabaa waan usoo noqonaya بسم الله الرحمن الرحيم xasan cabdi madar wuxuu ka hadlayaa warbaahinta iyo dhaqanka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta marka laga hadlayo dhaqanka iyo warbaahintu de waa mawduuc weyn oo u baahan waqti badan iyo falanqay badan u baahan hase yeeshee inta ugu kooban baynu ka odhan doonaa dhaqan markaynu tilmaano sida ugu kooban waxa weeyaan waa sooyaal nololeed oo bulsho wadaagto ay gaar kaga tahay bulshooyinka kale sooyaalkaasoo af leh agab leh cunto leh taariikh leh oo raadadka taariikhiga oo dhan leh intaa markay bulsho wadaagto ay gaar u tahay way kaga duwan tahay bulshooyinkii kale dhaqanka noocaasi waa dhaqankii bulshadaas markaa ku noolayd halkee bay markaa ka soo gashaa warbaahintu bay noqonaysaa warbaahin kastaa dhaqan bay xambaarsan tahay dhaqankaasi ama waa mid sokeeye oo bulshada ay ka dhalatay leedahay ama waa mid shisheeye oo meel kale ka imanayo oo bulshada ay ka dhalatay ay u keenayso haddii markaa dhaqanka bulshada ay ka dhalatay warbaahintaasi ay ku shaqayso yani waxay ka dhigan tahay dhaqankii bulshadaasi lahayd oo dhaqan nabadeed ah ayay xoojinaysaa ay kor u qaadaysaa taa beddelkeedana dhaqankii colaadda ayay yaraynaysaa oo meesha ka fogeynaysaa dhaqankii dhaqaalaha ama dhaqankii dhaqaalaha ee bulshadaasi ayay dhiiri gelinaysaa halabuurkii bay dhiiri gelinaysaa ganacsigii bay dhiiri gelinaysaa halkaasay marinaysaa waxay meesha ka saaraysaa dhaqankii kaa ka soo horjeeday ee baabi'inayay dhaqaalaha bulshadaasi leedahay oo dhaqaale kale bulsho kale leedahay bay meesha soo gelinaysaa inahaas markaa halkaasay iska soo galaan labadaas saxaafad kasta ama warbaahin kasta haddii ay ka shaqayn weydo dhaqanka bulshadaas markaa gaarka u leedahay oy kobcin weydo oo dhiiri gelin weydo maxaa yeele waa dhaqankeedii yani beddelkeedu wuxuu noqonaya inay dhaqan kale meel kale ka yimaado oo wax kale lasoo waarido hadday tahay aflaam noqoto hadday dhar xidhasho noqoto haddii ay cunto noqoto taa la buunbuuniyo oo cirka la geeyo kadibna bulshadii dhaqankeediiba hoos u dhacaya waa daciifaysa dhaqanku hadduu hoos u dhacana awooddii bulshada bawarkiiba hoos u dhacay bulshadu lahayd ay nolosheeda ku wadi lahayd waxaana la jeclaanayaa wax kale oo ka duwan dhaqanku markaa halka xidhiirka dhaqanka iyo warbaahintu ay iska soo galaan waa halkaa warbaahin kastaana sidaynu sheegayno
mar walba waxa u yaalla inay dhaqankaa bulshadaasun kobciso haddii dhaqanka nabadda aynu eegno tusaale ahaan bilowgii sagaashanadii xilli warbaahintuna bilow ahayd oo nabadaynta iyo howlahana bilan wada ahaayeen oo dadku iska hubaysnaa ayaa waxyaabaha ay soo kordhisay masalan warbaahintu ka qaadatay xilligaa laba nin baa oo xilligaa weliba hubaysnaayo iska ayaa murmaya mid baa wuxuu leeyahay maqaal baan kaa qorayaayo waxaan ku soo qoraya wargeyska saxaafaddu waa bilow kii kale uu baryaya wuxuu leeyahay wal walaalaha iga soo qorinaya iga daa waradeer iga daa iga soo qorinaya may waan kaa soo qoraya uu ka tegey markii dambe wuxuu odhanayaa iska daa waaya iska daa waan ku jawaabi doonaaye marka yacni maxaa dhashay warbaahintii dhalatay oo somaliland la dhalatay waxay keentay in halkii uu qofkaasi tallaabo kala qaadan lahaa oo hubaysan ficliyan uu ka qaadan lahaa inuu kana sameeyey intaa kii kalena uu warbaahintuun adeegsaday nabadayn bay markaa keentay taasun baa loo baahay mar walba inay hore u socoto oo dhaqankaa ay dhisto marka wixii kale waynu ku soo noqon doonaa laakiin mar walba waxa weeyaan warbaahintu labadaa dhaqan uunbay u dhaxaysaa kolba kii ay xoogga saarto uunba kobca ka gudaha ee dadkeed markay xoogga saarteen bulshadaas way dhisantaa xidhiirka halkaa isku xidhaana had iyo jeer waxa weeyaan waa nidaamka dawligaabaa isku xidha oo labadaasi xeerarka ka dhaxeeya xeerarkii dhaqanka soo kobciya xeerarkii saxaafadda soo kobciya labadii isa soo gaadhsiiyo oo isku xidha si wax wanaagsan uga soo baxaan waay aad baad mahadsanta xasan haddii dhaqan la yidhaahdo qeexitaanka xasan uu siiyey waxaa raacaya ummaddan dhaqankeedu inuu islaam yahay diinteedu muslimiin yihiin su-aasha dhalanaysa marka waxa weeyaan dhaqanka islaamka iyo warbaahinta anshaxeedu xidhiidhka ka dhaxeeya ama sidaynu isugu qobteli karayno eaynu isu waafajin karaynaa waa hab noocmaa aan u dhiibo sheekh cabdillahi maxamuud beershiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص مركز كوباد إلهي من تبارك وتعالى أو مهدنا غنى فرصة دينوسي إنه هالكن سكوني مهدنا مرلبات كانوا وحنو مهدنا غنى وساردها ورفافنته iyo waayeel oo inoo soo abaabulay barnaamijkan aadka u qiimaha badan mawduuca markii la ii sheegay ee laygu yidhi mawduucaas dhowr erey ka dheh ayaa waxaan idhi waxay ku habboonayd nin sheekhoo diinta aad u garanaya inuu ka yidhaahdo mawduucu waxa weeyaan saamaynta ay diintu ku leedahay habdhaqanka suxufiga saddex erey waaweyn baa ku jira waa diin iyo habdhaqan iyo suxufi waxaan jecelahay inaan dul istaago waa maxay diini sayse u qaabaysaa qaab dhaqanka dadka waayo suxufigu wuxuu ku dhex jiraa dadka diin marka la yidhaahdo luqada carabida dib loogu noqdo 5 eeriyo unbay ka fargaraysaa ama ay markaasi si waafi uga warantaa waa marka koowaad diintu waxa weeye waa maamul iyo awood ay bulsha leedahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu ku yidhi ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك مركي نوغا شيكيني قصة نبي الله يوسف مركي للراعيي ويلكي لغو ميسيي راشنك سلو سو تشوشيو او مركا قانون لو مريو وي فرصة نقطة إني كان لوغا ريبا سفركي إلهي وحاو يري مو أهاين ميد قادنا يا أود مامولك اي ولها نبي الله يوسف لكن أرنا يوغو تلقى لين باهي mar labaad diintu waxa weeyaan waa dhabo iyo habraac lakum diinukum waliya diin idinkuna dhaqankiina iyo iska haysta meeshaad marasaan annaguna hanu haysanno meesha aanu marno waa kii ilaahay ku dhayidhi gaalada mar saddexaadka diintu waxa weeyaan waa sharci iyo qawaaniin iyo kala dambayn sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan ilaahay waa ka yidhi qawaaniin baan idiin sameeyey nebiyullaahi nuuxu ku dhaqmay ambiyadii ka dambaysay ay ku dhaqmeen dadka ay ku dhaqeen mar afraadka waa abaalmarin diintu ma kelmadda diin waa abaalmarin maaliki yowmiddiin allaha ka mas-uulkee leh maalinta la is abaalmarinayo scientifically haddii la yidhaha ma huwa diin ama istilaax ahaan marka carabida la yidhaha waa maxay diini diini waxa weeyaan waa qorshe nololeed oo dhammaystiran oo alla ugu talagalay inuu aadamuhu ku maareeyo nolosha uu adduunka ku guud joogo ayaa la yidhaahdaa maadaama qorshe nololeed ay tahay
waxay saamayn ku leedahay markaa saamayn toosa oo aan markaasi aan dadbanayn waxay ku leedahay nolosha markaa noolaha khaasatan aadamaha ayay ku leedahay waxaanu qofku noloshaasi u bilaabantaa marka uu qofku yidhaahdo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah isagoo ilaahayna yidhi islaamka wada qaata oo diintaydaa qaata oo qaab nololeedkaa qaata ayaa dhinaca kale haddana ilahay waxau uhi laa ikraaha fi ddiin diintu male qasab compulsory maaha diintu inaad qaadato waxa weeyaan waa aaminaad uu qofku aaminayo ka soo go'da isaga haddii laynagu barashar gareeyo inaynu diin qaadanno waxaa imanaysa in hypocrisy iyo munaafaqnimo iyo in afkana laga yidhaha waanu qaadannay laabtana laga aamino wax kale deedna dhaqan kale uu soo baxo oo dadkii markaa dhaqankaa kale ay samaynayaan uu lid ku noqdo diintu waxay hagaajinaysa si aanay taasi u dhicin ayaa ku qancid iyo isfahan ayaa diinta lagu qaataa oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u sameeyey saas darteed diintaasi waxay samaysay xorriyad xayndaab leh xorriyaddaa waxaa ku jira xorriyadda hadalka waxaa ku jirta xorriyadda siyaasadda waxaa ku jirta xorriyadda dhaqaale raadsiga iyo waxa la midkaa xorriyaddaasi uu ilaahay inoo sameeyey subxaana wa tacaala markay qolooyinka gaalada een islaamka aada u fahansanaynin ay ka hadlayaan diinta waxay dhahdaan islaamku ma ogolo xorriyadda iyagoo tusaale usoo qaadanaya un dad maamul qabtay oo qaabkii ay markaa ummaddooda u maamulayeen culturekoogi uu noqday markaa dadkii inay ay u diidaan waxyaalo badan ay xor u lahaayeen islaamka marka dib loogu noqdo qur'aanka kelimaadka uu ilaahay kaga warramay waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi dheh labaa yidhi iyo waxa la midkaa ee abuuro dooda iyo ra'yi celinta kelimaadka abuura kun kelmadood bay ka badan yihin qaala yaquulu qul qaaluu qaalat kelimaadka haddii qur-aanka loo fiirsado waxaana la yidhi kelimaadkaasi waxay ka abuurmaanay ka bilaabmaan waa dooda laysku fahmo warka gebigiisuna wuxuu ka dhashaa wasiir baa yidhi madaxweynea yidhi iyo waxa la yidhi iyo waxa la qabtay ilaahay kelimaadka uu qur-aanka ku yidhi waxay ku weydiinayaan dhammaantood wuxuu ka dambaysiiyey waxaad ku tidhaahda deedna nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dee saamba tusaale inoogu ahaa nolosha ayaa marka la idhaahdo nimanbaa intay is urursadeen bay u tegeen caaisha oo xaaskii nebiga ahayd markaasay ku yidhahdeen bal nooga sheekeen nebiga maxaad ku tilmaami lahay laba saddex eray noogu soo ururi oonu qaadano nolosha ku dabaqno waxay ku tidhi kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aan nebi maxamed akhlaaqdiisu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd qur'aan waxyaalaha yaabkaa waxaa ka mid a kelmadda akhlaaqdu qur-aanka laba jeeroo keliya ku jirta 114 aayadood mar keliyaanay bilaab ayay sheegaysaana dhaqan wa innaka la calaa khuluqin cadiim mar keliyay sheegaysa inta kale in haadaa ilaa khuluqul awwaliin suuratu shucaraa ilaahay wuxuu kaga warramayaa qolooyin hore hawlahay samayn jireen iyagaa sidaa u dhaqmi jiray laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam wax toos u taabanaya kaana khuluquhu lqur'aan wa innaka la calaa khuluqin cadiim aayadda qur-aanka nebi maxamed akhlaaqdiisu markaa maxay ahayd siduu qur-aan u ahaa ila waa isweydiine waxaa la yidhi waxaa jira dee waqtiguna waa kooban yahay waxaa jira akhlaaq ilmu'awiya fi lqur'aan waxay culimmadu u bixiyeen 100 akhlaaqood ee qur-aanka ku jira cadaaladda garsoorka hadal wanaagsanida tabantaabinta iyo markaa qofku inaanu samaynin wax qaladoo bulshadiisa duminaya nebigu intaasuu ka shaqeeyey calayhi salaatu wasalaam caaisha markii la weydiiyey khadiija isagoo cararaya nebigu uu ka yimid maaragtay waxii ku soo degay isagoo baqanay gurigiisa u yimid ee iddadu ku yidhi hal erey bay ku soo ururisay nebiga tilmaamihiisa calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi waxaad tabantaabisaa ummadda qalin baa lagu tabantaabin karaa hadal wanaagsan baa lagu tabantaabin karaa lagu dhisi karaa bulshada xagga positifeka loo wadi karaa keliya maaha in lagu ururo dhinaca negatifeka iyo in markaa lala dhaadhaco dadka marka qur-aanku xayndaab noocaasa ayaa uu inoo samaynayaa marka waxaan xorriyadda hadalka aad baan uga xumahay inaan halkaa ku hakiyo mase raba inaan iswada raacsano waa usoo noqonaya cabdilaahi hadalkan socday iminka waxaa iga soo baxay weydiin aan kusoo noqonaya maxamed xasan cali waxaa tidhi xidhiidh ka dhexeeya siyaasiga iyo saxaafadda xaqiiqdu siday tahayna labada dal roga ama wanaajiya waa labada waa siyaasi siduu wax u arkay waxuu doonaya
oo qabo cabiidi caburi cudud iyo saxafi iska dhici iska celi kabaha la dulmar dhulka u jiid afka u furt yacni labada dal ku dhex dhintaa waa labada xidhiidhkooda waxaa wanaajin karaa ee qof waliba mas-uuliyaddii wuxuu saarnaa u gudan karaa kana ilaalin karaa inay xayndaab gudbaan maxay tahay maxamedow وعضبة وحر حر رأس ميوية صحافتها وإسكاعاتي كاسين لكن واحد كلو شريسنا أنا ما بقى بين صحافة وحر يسوع عن شعلها ين حرية لكن هتقول لك صحافة وحر وحرية سيكو عياري واحد من سن حر رأس ميوية طبعا أو بدنا الوضو هتقول لك ثمانين حر رأس ميوية واحد أرتو إنك سوى حول بوح الإرجع اللي هو طريقته إنه الإرجع ما كقاضنه إنه حطرنه وبكو هتدو كرن كرو ereygan oranaya khasaaraha ka iman kara nooca uu iman karo iyo siduu u dhici karo waxaan u malaynayaa in wax badan oo hadda aan isku haynay hagaagi lahayn inagoo sheegayna beri nin saxafiya weyn wuxuu igu yidhi oo ii sheegaya meel wax ku baranayo iskaba koobnaydoo berigaa dadku aqoontan badan ee hadda iyo jaamacadahan maba jirin wuxuu igu yidhi you can say whatever you like waad oran kartaa wax kastaa doonto haddii aad taqaano 4 shay sidaad u odhan lahayd ciddaad ku odhan lahayd halkaad ka odhan lahayd ma garasho iyo goortaad odhan lahayd haddaad intaa taqaano wax kastaad odhan kartaa laakiin intaa haddaad isku walaaqdo wixii adoo sheegaya ayaa waxay dhibaato keenayaan ka soo qaadba hadda ninka siyaasiga ah waanu geli doonaa innaga horta marka hore teenna ninka aan qaladkiisa sheegin qaladka qofka kalena ma sheegi kara haddaad waraysi qaadaysa hadda waraysiyaasheenna waan arkay shalayna adnaaba ka cabanayso halkan ka hadlaysayana meelaha qaar waan runtii uga garaabay waraysiga anugu inta kooban aan ka aqaano marka aad soo hor fadhiisato qofka aad waraysanayso ama siyaasi ha noqdo ama aqoon-yahan ha noqdo ama wuxuu doonaba ha noqdo mawduucyadaad ka waraysanaysaani way kala duwan yihiin horta waraysiga marka horeysa waxaa horeeya hanashada kalsoonida qofka aad waraysanayso waxaa la yidhahaa afka qalaad ice breaking baa la yidhaha haddii aad qofkii dagaal ku bilowdo ba isna uu ku xidhaya adna waad wax war maad keenin saxafiga guushiisuna waxa weeyaan warkii inuu helo wixii aad waraysanaysay inaad heshay ayaa guula laakiin anugu inamadeenna markay sheekeynaya dhexdeena waxaan maqlaa waan ka cadhaysay markaasoo cirka galay oo qowladii ka xumbiyay dee warkii kamaad helin waxa weeyaan inaad dejiso marka hore dabeedna aad warkii ka hesho guushu waa taa tusaalaan usoo qaadanayaa ee maaha kalgacal aanu qabeen nin la odhan jiray robin white b b c da anigu maba jeceliya robin white nin la odhan jiro b b c da ka hadjiro ingiriis ahaa waraysigiisu aad buu adduunka o dhan ugu caanaa ninkaa waraysiga robin white malaa odayaasha weyna garanayaane ayaa waxaa xidhay iidi amiin oo markaa uganda haystay ayuu walaanu doonayn ka sii daayey isagoo kambaala jooga qaladkuu sameeyey robin white waxaa ahayd warkii muu qaadanay isagoo weli uganda ku dhex jira ayuu warkii diray markuu b b c dii ka baxday robin white waa la xidhay caalamkao dhan baa adigu qayliyo markii dambe waa la soo daayey markuu nairobi marayo ayaa isagii b b c du waraysatay oo la yidhi bal ka warran adiga iyo iidi amiin anigii iidi amiin waxaanu ku heshinay buu yidhi inaanan waxaanu ku heshinay aanay sheegin waanu sheegay ogawda markaa macaan waa cabris buu sheegay markaa waxaan idiin sheegayaa tusaale kalaan siinaya waxaa la odhan jiray ninka saxafigii wuxuu shabahaa jiirka markuu qof qaniino godkiisu ku jira markuu qofku dareemo qaniyada isagoo godkiisaabu galayba wuu afuufaa qofka markuu afuufo ayuu qaniinaa innaga isagoo qaniinsan baa layna qabanaya maaha saxaafadtaasi horta naftaada waa inaad nabadgelisaa marka hore waxaan idiin sheegayaa oo kale anigu nin dareewale haddii hadda aad baabuur nin u dhiibanayso oo uu ku yimaado aad yidhahdo dareewal baanahay oo aad ka qaadayso interview oo doonayso inaad ka qaaddo markaayna aad waraysato balanta suu shaqaynayay uu kala 200 oo shil baan galay miyaad baabuurkaaga u dhiibaysaa haddii kale 200 oo shil baan galay baa iga tag baad leed saxafiga kole 200 oo jeer baa lay xidhay waa dareewalkaasoo kale annagu weligayo ilaa afweynaanu la soo shaqaynay oo qofka hindhise la xidhayay habeenna lama xidhin waxaan janna maanta xorriyadaynu ku haysanaa mid la midoo adduunka jirtaaba ma jiro
haddaynaa inagu dareewal xun hayna cidina xidhi mayso siyaasiyiintana waxaan leeyahay waxaanu nahay inamadiinnii saxaafaddu waa saxaafaddiinnii noo tudha haddaanu qalad samayno nawaaniya ciidamadana waxaan leeyahay budhka ha nagula boodina oo dhagaa ha nagu xidhano ma nagu ridana xabsiga waxaan kaloo leeyahay ururka saxaafadda ee solja wuu wanaagsan yahay si uu noogu dadaalayo kuwa la xidho uu u dadaalayo kuwa kale dulman ee aan xidhnayna ha u hadlo xadhigun yaanu sheegini ha sheego kuwa dulman saxaafadoo dhan baa dulman mushahar ma qaataan caafimaad ma helaan nolol ma haystaan waa kadeediin waa kabalayiin arrimaha ka hadlo waxaan lahaayeen markaan ka hadloyn halkaynu maanta maraynana dad ma wada haysto somalilan maanta halka aynu marayno nolosha aynu joogno anugu intaasaa noolaa cidna ammaani maayo waa ogtiino maxamed ahaan anugu madax qayb iska daaye horjooga meel kamay maantana ka rajayn maayo laakiin ilaahay baan u mahadnaqayaa nicmada maanta somalilan taallaa horumay ool weligeed anaa qiraya taa niman wada halkaa fadhiyo saaxiibkaya aynu hadda waddo soo wada maraynay oo baabuur igu soo qaaday anigu baabuur ma liye annagoo waddadii maraynaan eegay waa u yaraan malaa 10 kilomitr haddaan 8 kilomitr ahayn qof lugaynaya maanaan arag baabuur baa maraysa intaasoo dhan وهسان كل والله لدرك لكن الحمد لله لهالي الله واي هذه أفضل ما تنتهي أن حسن عبد المدر كل نقطة حسن وحو شيء أنت دود هذا الكلام فلق أنت سعودتي إنه تري حديد أما دور وربعين تقول هايين نبض أنت قرن كان يجد سعود كه نانك دي بديسك لا بضبع وحي سميني أن أنا هاين هدي ما أنت الإسراء سمايا موحدو سمايا وقتي تبر منا أنو باهنين ومعناه يهين قلينك دور كودو كقاتين أن حسن أنت بدن سومالي لان قديه ده واحد شراء أن خلافيو أن دقا الله ما سعودان وادب مرك قاربي ما دان اسكو دعيه قبيله وربعين تلفتي دور بعيارته انتين ليك بعد دقن كنا بدين وربعين تداوعي كرتا اما يقادن كرتا دور كي دبديسك لفتيسا ين بدين تي حلال كي لسو دبالو واي بسم الله ان horta saynu sheegnay de warbaahintu nabadayntii iyo yareyntii colaadaha ama baabiintii kaalintii ugu weyneed ba ka soo qaadatay waana ku amaanan tahay hase yeeshee waxaa dhacday markii dambe muddo kor loo socday ayaad moodaa sida waxyaabo badan oo bulshada ka dhex socday bay isku taageen inay isku taagtay yani haddii dhaqankaasi sii socon lahaa waxaa loo baahnaa dhaqankaasi inuu la tallaabsado qaybihii nolosha oo dhan maaha nabadayntii oo keliya masalan waxaynu ka hadlaynaa afka wadamada dunida imika waxaa la sameeyay heer waxa la gaadhay af kasta inta erey oo kusoo korodhay sanad walba la qoro leeyahay intaasoo erey baa kusoo korodhay ha lagu daro intaasoo erey baa dhimatay ha laga saaro ereyada iyo afka wanaagsan ee saxaafaddu is adeegsataa waxay qayb ka tahay nabadayntii oo haddii meel wax ka dhacaan waa kolba sidaad u dhigto haddaad dhinacaaga wanaagsan iska taagto mushkiladdu waxa laga yaabaa inay taa ku dhammaato haddii kale erey keliya oo xun oo tidhaahdo ayaa dhibaato keenaya beriga dhowr iyo sagaashanka iyaduna xilli hore ahayd oo laydhka magaalada hargeysa la sameynaya tiirarka la taagayay ayaa nin baa wuxuu yidhi warniyo tiirarkani bilaa dhacaan mooyaane bilaa taagnaadaanba kama fikira buu igu yidhi tiirarkii baa la taagayoo waxa la islaa magaaladu laydh ma yeelan karto yani dareenka negatifeka ee taban in meesha mar walba laga saaro xagga positiveka saxaafaddu ka shaqayso ay ka shaqayso ayaa markaa muhiima taasoo keliya maaha dhinaca saboolnimada ma aragno iyadoo laga hadlayo saboolnimada dhaqaalaha sida loo hubinayo saa laga hadlayo يعني أنت وناكسن إن حوج صارته صحفي كنا قونتي سدسو أو تاكو تلدسو أف وناكسن مبا نبات كنا أف وناكسن مبانا كنا نولول وناكسن مركب حيلاتها هي صحافته ولي كالنت هو هي ستا فرصة هي ستا ما تا قونت اللي جوك بعين كرو فرصة هي ستا قفك صحفي كيسكون دسي كرو مركب مركب مسكح لكو هي سو وح وناكسن بتشي كرتا ده نبات يور دقالها يورين أول بكالن في عم بلغالن كرا waxay la tahay waa sax xasan si yani kuugu soo noqon soo raacso dal xaggan aynu ka soo gunaanadno waxaan kulay ku soo gunaanay lahayn maanta horta saxafiga waxa kaliya maanta fursadna u haystaa noloshiisa iyo nolosha bulshadana ku hagaajin karaa waxa weeye waa aqoon saxafiguna aqoontiisa dhiso weeyaan aqoontana sida loo helayaa maanta way fududahay aad bay fududahay aqoontaada markaad dhisto xuquuqdii qofka kalena waad badbaadinaysaa
taadina waad helaysaa inta kaliya le waxa weeyaan suxufigu aqoontiisa ha dhiso dhaqanka inaga dhexeeya ee bulshadana in la wada xoojiyo oo dee dowladduna kaalinteeda ka qaadato oo ay fursad siiso suxufiyiinta runtii taas maan odhan lahaa aad baad u mahadsantahay cabdillah waay waa hagaag kolley wax badan ku dari maayo maadaama dee kelmadda mawduuceennan aniga igu wajahan uu yahay dhinaca diinta dadkeenna inta badan qaar baa ka shekeeya malaa diintu xorriyad ma leh iyagoo meelo gaara dee taarget ka dhiganaya laakiin taasi beddelkeega dee maanta adduunkaynu ku wada nool naho adduunku gaalo iyo muslimba waa la iska warhaya gaalada laftooda xorriyaddoodu waa noocee xorriyadda saxaafa marka la idhaha ama xorriyadda warbaahinta intee bay gaadhsiisan tahay waa in aynu wada garanayno maalimihii kacdoonnadu carabta ay ka socdeen ayaa nin maraykan oo la idhaahdo james betras ayaa waxa uu qoray buug uu bixiyey kacdoonka carabta iyo kacdoonka lidka ku ah deedna wuxuu ka sheekaynayaa dowladda maraykanka iyo dowladaha reer galbeedku siday u qaabeeyaan markay doonayaan inay meel markaa hawl ka ridaan ama ha ugu soo dhuuntaan waxa xorriyadda la idhaah ama wax kale ha ugu soo dhuuntaan deedna wuxu uhi markay kacdoonnadu dhacaan dadka kacdoonnada hor kacaya ayaa waxaa loo soo diraa khubaro tababarta sida kacdoonka dowlad loogu sameeyo dhinaca kalena dowladdana waxaa loo diraa buu yidhi siday dowladuhu ula tacaalaan kacdoonka adduunkana raa'yul caamka guudna waxa la maqashiyaa xuquuqda insaanka ha la ilaaliyo waa nin noolow maraykan oo dee saxafi ah oo ka qoray buuggu qorna the arab revolt and the imperialist counter attack buuggiisaasa oo p d f isagoo aan la heli karo ayuu kaga warramaya islaamkeennu marka uu xorriyad sheegayo xorriyadda wuxuu u sameeyey un xayndaab aan la dhaafi karin laba qodob unba ku xidhay mid akhlaaq ah iyo mid qaanuuna xayndaabkaa akhlaaqdu wuxuu ilaahay inoo diiday inaynu kula kacno dadka gef ayuu ilaahay inoo diiday doodaha qur-aanka ku jiray ibliis oo ugu dood kululaabuu ilaahay ka warramay hadduu islaamku diidan yahay xorriyad inoogama warrameen ibliis iyo ilaahay wixii dhex maray ilaahay markuu ku yidhi ilaahu inoolaysii u sujuudi maayo maxaad ugu sujuudi weyday waxa uu ku yidhi khalaqtanii min naar wa khalaqtahu min tiin isagana dhoobaad ka abuurtay anaa ka laandheeraysan buu yidhi oo dabbaad iga abuurtay ilaa qiyaamaha isug buu ku yidhi wax alla waxa dad ka dhasha ninkaa anaa waddo la marayoo leexinaya ilahay wuxuu ku yidhi waan ku sugayaa dooddaa ilaahay noomuu keeneen haddaanay xorriyadda islaamku jirin wuxuu ilaahay inoo tilmaamay xorriyaddu siday u jirto malaa'igtu markay ilaahay la hadleen ilaahay waxa uu ku yidhi waxaan abuurayaa khaliifo dhulka guudkiisa waxay ku yidhahdeen maxaad u abuuraysaa waxaad abuuraysaa bay ku yidhahdeen wax dhiig daadiya oo dhulka fasaadiyo xumeeya markaasuu ilahay ku yidhi waxaydaan garanayn baan ogahay anugu deedna markaasay ka toobadka ka noqdeen oy ku yidhahdeen ilaahayow adigu baa wax yaqaan maxay kelimaadka noocaasi maxay frameka inoo samaynayaan waa maxay xorriyadda lafteedu inay xayndaab leedahay oonu qofku dhoobaysan karin akhlaaqiyaadna ay ku xidhan tahay wixii ummadda meel wada degan ay akhlaaq u taqaano ay edab u taqaano ay dhaqan u taqaano hadduu qofku yidhaha xorriyad baan haystaa waan ku tumanayaa islaamkuna ma ogola ee dhaqanka hagaagsanna ma ogola ugu dambayn waxaan odhan lahaa haddii dadka saxafiyiintii aanay iyagu isdhisin aqoontooda kobcin maanta adduunku meel adag buu maraya saxaafadeennana aad baynu uga warhaynaa marhan master degree markan qaadanayaba ayaan saxaafadda wax ka qoray buuggii aan masterta ku qaadanayay the role of mass media on somaliland peace building doorkay saxaafaddu ku lahayd dhismaha nabadaynta somaliland markii aan tegey goobaha warbaahinta jaraa'idka gaar ahaan ayaa jaraa'idadii ugu horreeyey 790kii ka horreeyey jaraa'idadii soo baxay waqtiyadii ay nabadayntu inoo socotay hadday sagaal mawduuc hadday ku qoriyeen ama 9 war ama 10 war ay wajaada ku qoriyeen ama 8 war 9 ka midii dadkay dhisayeen fitno may kicinayn waxay abuurayeen jawi ammaan dadku markay aroortii jaraa'idka ku waabaristaan iyadoo xaafadu isku kacsan oo reeru isku kacsan yihiin ayuu haddana ahaa ammaan maanta waxa weeyaan waa the extreme line-ka kale dhanka kale u taagay jaraa'id baad arkaysaa gebigiisaba waxa ku qoran uu xaafad ka leeyahay aad arkaysaa waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan inay aqoonteennina hoos u socoto hagiddiina haynaga xumaatay waxaan kusoo gebagabaynayaa markay reer galbeedku ka warramayaan waxaa la idhaha the public engineering bulshada in la hago ayaa waxaan tusaale u soo qaadanayaa
buug ka mida bugaagtii la qoray 55 ayaa nin ka mida saxafiyiinta waaweyn ee Mareykanka ah ayaa dhowr iyo 30kii waxa uu sameeyay jiray maqaalo uu kaga hadlayo bulshada sida loo hago oo waqtiyadii dagaalkii koowaad ee adduunka laga soo noqday ama sansaanta dagaalkii labaad iyo waxa ay socdeen ayay ahayd dabadeedna bugaagtaas waxay ogaadeen iyadoo oo maalin maalmaha ka mid ah buug la yiraahdo The Engineering of Consent oo uu qoray Edward Bernays ninkaasi ayaa wuxuu kaga warramayaa waxa uu leeyahay qofku siday saxaafaddu siday dadka gebigoogaba madaxa uga qabsatay isagoo tilmaamaya ayaa waxa uu dalka Mareykanka magaalo kamid ah oo dhageysanaya 1958kii idaacadda CBS oo music iyo heeso iyo laga dhageysanayo markaasi meel evening galab la iskugu soo baxay oo markaasi laga gabyayo heeso la dhageysanayo ayaa war degdega soo dhacay ay tiri idaacadii dabadeedna nin wariyo la yiraahdo Arson Wales ayaa wuxuu ka hadlay qalab aan la garanayn ayaa wuxuu fadhiistay magaalada Koonaheega waxa laga yaabaa inuu ka yimid xidigta Mars duulimaadu ku yahay dhulka wixii warbixina waan idinku soo celin doonaa halkiiba haddana ka sii socotay buu yiri riwaayadii dadku tension-kooga intuu kacay ayay iloobeen inay riwaayadii dhageystaan waxaanay sugayeen bal warka labaad ee soo baxa in yar kadib uu wariyay ku soo noqday 10 daqiiqo kadib markaas wuxuu yiri sidii goob joogayaal iyo khubaro iyo maxay iyo kuwan sheegeen intuu dad badan tiriyay waxa loo malaynayaa in waxaasi uu yahay wax samada ka yimid oo xidigta Mars ka yimid dabeedna uu dagaal saas oo haddana u akhriyay dadkii waxay u diyaar garoobeenba inay qaxaan muddo yar oo kooban kadib baa uu kule buugaasi sidoo qorayo muddo yar oo kooban kadib waxa la ogaaday inay science fiction tahay riwaayad weyn oo loo yaqaano Mareykanka caan ka dhex ahayd oo ay kaga oo ahayd la yiraahdo War of Worlds oo science fiction waxay tijaabiyeen niman maaragtay filimaanta sameeya ayay wixii noqotay halkaas waxa laga bilaabay buugaasi leeyahay in dadka oo saxaafaddu ay qaab u qaabayn karto haddii markaa la qaato dhaqanka islaamka oo inuu qaadano dhaqankeena oo inuu bulshada isniraano meeshan ay ku jiraan ka jiida oo meel fiican ula baxa waynu u saari karnaa hadday dadka wax qoro dhan haddii kale waxay noqonaysaa un qalinkaasi mid dadka isku diro oo agrada aad baad mahadsantahay gabagabada aan ku gunaanada maxamed xasan cali sidee xeega u noqonayso ilkanuu nabadgelyaa waxa weeyaan hortayn waxaa jira mushkilad tanaynu isku hayno ka weyno iyana labada dhinacba gelaysa waa inantii waa qabyaaladda taa markaynu horta meel iska dhignaa saxaafaddeenna lafahaanteedu toosisa haddii siyaasigu marka runta laga sheego ee wargeyska ama meel kaleba wax lagu soo qoro wilaayuu ahaa ninka wax qoraya waa walaalo reer arbataag waa kuwii beriga ah horta dhibaato imanaysa haddii ninka wax qoraya ama wax sheegayaana wilaa waa kii reer hebele beriga caynka waxaasi waa waxaynu ka dhex warinaa waxaynu nidhaahnaa saxafiya labada qoloba waxay taa kaga bixi karaan waxa weeye mas-uuliyad xilka ay qaadeenna wuxuu ahaa labadaa inay saafi ka yihiin waa inaan siyaasiguna waa arag in qol ahaan lagu erinayo saxafiguna qol ahaan wax ku eriyan waa inaynu mihnadda ixtiraamnaa haddaynu nahay saxafiyiinta mas-uuliyiintuna ay nagu ixtiraamaan hawsha aynu hayno dadka aynu u shaqaynayna ee aynu u ifinayna xaqiiqadana waa inaynu ixtiraamnaa haddii taasi lunto waxay nagu dhacayaa kalsooni darro wax liyo waxa inaga lumaya kalsoonidii dadkii ina daawanayay kuwii ina dhegaysanayay kuwii ina xaqriyay waxaad arkaysaa hadda wargeys baa la soo qaadayaa dadkaas marka loo akhriyo waxaan leeyahay maxaa been ku qoran maanta been maxaa ku qoran hadalka laga bilaabaya wuxuu yahay been maxaa ku qoran maanta hadduu xaqiiqo qoray bal halka kalsoonidaadu maraysa adag marka waxaa la doonayaa si aynu u soo ceshanno kalsoonida dadka aynu wax u sheegayno ama wax u qorayno inaynan hubinno waxaynu leenahay iyo habkaynu u gudbanayno midna isagu barya ma leh wixii halkan dan u ah ee ummadda somalilan dan u ah ee laysku og yahay ee qofna aan loo sheegayn maanta ee ugu horraysa qarannimadeenna gooni isutaaggeenna ilaalinta sharafta sumcadda dalkeenna dee saxafigu waa ninka u horreeyay xil ka saaran yahay siyaasiguna waxa weeyaan inuu isaguna aanu saxafi noqon waa markaan ku soo bedelaya hadda
صحاب وسياسيين صحافة بيفرتان هذا سوشيال ميديا هيكون الشرام بقى نقول استجابة بقلي نقول بقبلي مركا وركيبة استجابة كسوه الرينية waxaan jeclaan lahaa inay saxaafaddooda ku kalsoonaadaan oo yaanay noqon Trump meedan Trump baa le Twitterkiisa isagoo had iyo jeer soo tuuraysna waxaan la haysta annaga idin waramayna shaqada annaga haysanayna idinna tiina haysta aanan gacmaha is qabsanno wassalaamu calaykum aad iyo aad baad mahadsan tahay dhammaantiin waan idiin mahadnaqayaa intiina fadhiday intiina dhegaysanaysay intiina waqtigana siisay fadlan ila sii dhaweeye maxamed xasan cali weji cabdilaahi maxamuud ibraahim beershiya iyo xasan cabdi madar waqtigooda uga mahadnaqanaa idina waa mahadsantiin sakri aad iyo aad ay u mahadsan yihiin groupkaasi ama kooxdaasi halkan falanqaynta kaga qayb qaadanayay iyo daadihiyaha dood falanqayntaasi barkhad maxamuud kaariye aad baad u mahadsantihiin mawduucyada maanta aynu kaga hadlayno qaybta labaad maalintii labaad ee shirweynaheenna way noo soconayaan waxaana ka mid noqon doona mawduucyada inoo soo socda mawduuc ah afka ama luuqadda doorka afka ama luuqadda ee warbaahinta oo uu inoo jeedin doono wasiirka wasaaradda warfaafinta oo halkan iman doona laakiin waxaan jecelahay intaynaan u gudagelin doorka afka ama luuqadda ee warbaahinta mawduuca intaynaan u gudagelin hees baan ka horreysiin doonaa oo ku saabsan waa hees loo tiriyey warbaahinta oo fanaanad Kawsar ay noo qaadayso kadibna mawduuca doorka afka ama luuqadda ee wasiirka warfaafintu uu halkan inooga soo jeedinaya inoogu xigaya waxa kale oo inoogu xigi doonaa falanqayn kale oo iyadana aynu gudageli doono nus saacaha aynu 10 daqiiqo bixi doonaa markaynu saacaha ka soo noqonana waxaa la geli doonaa doodii falanqayntii ugu dambeysay iyo warmurtiyeedkii laga soo saaray shirka labada maalmood socday iyo wasiirada wasaaradaha warfaafinta iyo arrimaha gudaha oo halkan inoo fadhiya oo iyaguna gabagabada inoo soo xidhi doono shirkeena maanta oo 2 maalmood socday marka waxaan jecelahay inaan fanaanada Kawsar aan ku soo dhaweeyo masraxa oo heestaasi saxaafadda ay u tirisay oo sida ay sheegtay xalay heesta la tumay oo xalay la codeeyay maantana halkan ay jeceshahay inay ka hor qaado heestaasi dadka halkan ka soo qayb galay shirkan Kawsar ku soo dhawow Kawsar soo dhawow heesta cidda tirinteeda leh iyo musica ku horeysay ka bacdina heestii baa laga sugay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته horta waxaan doonayaa inaan isku sheego bahda saxaafadda waxaan ahay gabadha keliya ee xukuumadda imika jirta ama madaxweyne Muuse Biixi Cabdi darteed fanaanad ku noqotay dartii fanaanad ku noqotay dartii la xamaysato ku noqotay dartii abwaanad ku noqotay madaxweynuhu malaata ووجي ما في ليا هؤلاء قرن كاكو بات سيدا درتين مركي يجوا الرئيسان هيصو وحي هيستي موسى صدوا كامبين كيورتانو فانك داقت بانك سوق للعراق كامبينك وركا شلي توليانو شقدي قرن كوكوتشرا أي قلية دولة عليهنا مركا ييران بابرت الله كاني شلي هوشا بدنين فلانين تويجا هرجلين اسم مدحونو ليه هاي وحقبت كمدحونا كترجميسي iyo waxqabadka xukuumadda baan sidee shalay waan iska laabtay waxaan niyo saxaafaddu way dadaashaa qofka abwaankiina inta badan horta abwaan sheegan kar ma wali waan yarahay wuxuu maskaxiyan qofka wax tuujiyo maskaxdiisu markaa wuxuu maskaxda saaraa horta saxaafaddu waxay qaranka u hayso ana istiray waxaan u tagay agaasimo xasan inuu fadhiyin kala ma garanayo ka isagoo shalay ka fadhiya waxaan ku waxay igu dhalatay hees aan maanta ka dhex faa'iiday intii la hadlayay saxaafadda wixii igu yiri maad samayn kartaa haa waa samayn karaa oo maad ka soo gaarsiin kartaa oo waad la xameyn kartaa oo tumi kartaa haa xalay ma seexan 2 saacadood baan ka seexday isla markii baan sameeyay isla markii baan la xameeyay isla markii baan soo qaaday tacabkaan xalay u soo jeeday aan saxaafadda u sameeyay waxaan doonayaa iyaguna inay abaal celiyaan oo heesta meel walba ka ridaan walaana hay fanaanad yar
أقولها سنة كان هرقلي هداني سحافة ترين سد بنقول لها القرصون صدالك تابقلي أقولها سنة كان هرقلي هداني سحافة ترين سد بنقول لها القرصون سرالي بنتي فتشان سرنك حما هاي قرشان سعيدة ويا بالشدة صاحبه وهو كالفرن سعيدة ويا بالشدة صاحبه وهو كالفرن سرالي بنتي فتشان سرنك حما هاي قرشان سعيدة ويا بالشدة صاحبه وهو كالفرن سعيدة ويا بالشدة صاحبه وهو كالفرن سمران درتا بشي سمهاغو دفلي بيكو سلعان دفلي بيكو سلعان وحيصر ميان درتا دبتي سمران درتا بشي سمهاغو دفلي بيكو سلعان دفلي بيكو سلعان وحيصر ميان درتا dhalinta saxaafaday kalsoonida suga shacbiga sinaanta loo guntado sifaya laba afle dhalinta saxaafaday kalsoonida suga shacbiga sinaanta loo guntado siyaasa amigo lumin sabolka xaqiiqo dhicin waxay soo ururiyaan sida wuxuu tari lahay waxay soo ururiyaan sida wuxuu tari lahay sidaas amigo lumin sabolka xaqiiqo dhicin waxay soo ururiyaan sida wuxuu tari lahay waxay soo ururiyaan sida wuxuu tari lahay سمران درتا بشي سمهاغو دفلي بيكو سلعان دفلي بيكو سلعان وحيصر ميان درتا دبتي سمران درتا بشي سمهاغو دفلي بيكو سلعان دفلي بيكو سلعان وحيصر ميان درتا wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane maxamed kaahin axmed oo hawlna ku degdegaya hawl qaran ay u taalo ayaan jecelahay inaan hal kelmad siiyo oo uu halkan ka jeediyo waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزيرك وزارة ورفافينتا iyo wacyigelinta suxufigii reer Kenya maanta inala joogay shalaytana inala joogay halkan sida wanaagsan uga hadlay Master Koye ururada saxaafadda iyo dhammaan suxufiyiinta halkan fadhida iyo marti sharafka kale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shalayta halkan hadallo badan baynu ku soo jeedinay maantana arrinku wuu sii socdaa horta marka ugu horeysa aad baan ugu hambalyanayaa wasiirka iyo wasaaraddiisa labadaba inay shirka noocana ay inoo soo qabanqaabiyeen oo shirweyne saxaafaddu ay leedahay oo aan ahayn noocyadii hore ee workshobyada yar ee waxa yarun inta laga jeediyo aan aad biyo dhig fara badan u samaynin waayo arag fara badan iyo ruug caddaagii hore saxaafadduna waa kuwa halkan soo fadhiyo way u yeedheen kolley dee saxaafaddu shalaytana way buuxday maantana waa yartihiin kolley waxaan doonaynaa annaguna dee
waana lagu marti qaaday oo shirkan waan idinkala qayb gelaynaa horta marka ugu horeysa workshop sidiisii looma soo qaabaynine qoladii imika halkan inaga horreysay mawduucii ay qaateen iyo mawduucyada kale ee soo socda waxay labaduba tilmaamayaan horta halkaynu joognaa iyo halkaynu u soconnaa mid waa iska caadi oo saxaafaddu dabcan maxaanku idhaahdayey waa saxaafad madax bannaan mid xukuumaddu ay leedahay marka waxyaalo fara badan oo dad saxaafadda lagu yaqaano waxaa lagama maarmaan ka ah waxyaalo fara badan comments bay ka bixinayaan ama waxyaalo fara badan waxbay ka sheegayaan laakiin arrinka ugu horreeya la raba inaynu isla waafaqnaa waxa weeye iminka inteenana isku muuqaal ma wada nihin isuma wada ekin lab ma wada nihin dhadig ma wada nihin bulshada ilaahay koonkan ku abuuray qofna qof la nooc maaha qofna qof la caqli maaha waxaynu doonaynaa laakiin inaynu astayno mar walba ku dhaganahay halkaynu joognaa iyo halkaynu u soconnaa qoygii waa jabhad gaboobayo anigu waxaan bartay 97 baan dalka Norway ku bartay isagoo markaa mucaarid ahoo political asylum Norway u jooga marar fara badanna Kenya lagu xidhay marar fara badanna adduunyadu ay u soo ashkatootay oo dabadeedna sidaa lagu soo daayay habeen dhaweed baan halkan ku sheekaysanaynay markaa wuxuu yidhi gaadhiga intaas raacdo ama ninku saacad qaaliya sito ama gabadhu daha fara badan xidhanayso daaqadda gaadhiga inta halkaas saarto gacanteeda sidaynu halkan ta samaynaa lama samayn karo way go-an tahay buu yidhi daaqaddu gacantu way go-an tahay waana waxyaalo fara badanoo ka dhaca nimcadana haysataanna laguma haysta buu yidhi Kenya waa dalka ugu fara badan ee nimanka lagu dhaahdo dowladaha reer galbeedka iyo hay-adaha caalamka oo dhami ay Afrika ka degan yihiin marka waxaynu u baahan nahay suxufigeena halkan nabadgelyo ku haysta innaguna nabadgelyanu haysanaa masalan anugu shalayta waxaa laga yaabaa suxufiyiintii xuutiyana way hadleen aniguna waan hadleeno wax fara badan inaydaan ila ogoleen aniguna inaanan wax badan idinla ogoleen waa caadi markaa inaynu waxyaale ku kala gedisnaano laakiin waxaynu doonaynaa saxaafadeennu in ay maxaanku idhaahdaye itijaaha iyo istaraatiijiyada inaynu samayno mawduucii haddeerta laga hadlayey caqiidada islaamka iyo saxaafadeenna ee beershiya ka hadlayey arrintii xasan ka hadlayay xasan cabdi madax dhaqanka iyo saxaafadda arrintii weji uu ka hadlayay masalan markaad soo qaado haddaad ingiriiska joogto ama faransiiska joogto ama maraykan ama jarmal joogto waad garanaysaa saxaafadda maalinba meesha aad joogtaa iyo saxaafadda kale waxay ku kala duwan yihiin maraykanka iyo ingiriiska dee ingiriis baa lagu wada hadlaa laakiin ta ingiriiska waxaad ka dhex dareemaysaa dhaqan ingiriis oo uu kula dagaalamayo dhaqanada kale ta maraykanka dhaqan baad ka dareemaysaa horta waxa lagama maarmaana marka ugu horeysa wax kasta aan qornay asluubaadka saxaafadeennu ay wax u qoraysaa horta waa inay marka ugu horeysa waafaqsan tahay shareecada islaamka wax kasta oo khayra diini yihi qofka diinta inuu ka fogeeyo mayo kuma soo dhaweeyo waxaynu kale u baahan nahay wasiirka hadda ka hadli doonee languageka saxaafadda lagaga hadlaayo oo waxay u baahan tahay markaa ninka suxufiga ahi isagoo waxmaagaya oo gidaarada duminaya oo maxaanku dhahdaye meel dambaska cad ka dhigaya haddana waxay u baahan tahay saddex mihnadood shay bay wada wadaagaan waa saxaafadda waa looyarka waa dhakhaatiirta saddexdaasi waxay wadaagaan waxaan la yidhahda ethicska dhakhtarahoo bayshankii uu maanta soo qaray ama soo daweeyey suuqa kaga sheekaynayaa dee ethics ma leh suxufi ka iminka maanta isar qabteen aroorta article markiiba ka soo qoraya oo madaxa kaga dhufanayaana de journalism ethics lama leh journalism is all about ethics mucaarid ahaw muxaafid ahaw waxaynu markaa u baahan nahay anigu shalayta talooyin baan soo jeediyey waan hayay code of conductkiinii qoladan maxaanku dhahdaye soldier
iyo kuwii hore la sameeyey anigu waxaan soo jeedinaya horta marka ugu horeysa in dib loogu noqdo maxaanku dhahdaa xeerkii saxufiyiinta ee soldier maaha waxbaa loo dib wax khaldan baa ka buuxa laakiin wuxuu u baahan yahay xeerkaasi iminka muddo soo socday xeerkaasi haddii uu muddo soo socday wuxuu u baahan yahay in dib loo eego in la kobciyo wuu yar yahay in lagu daro maxaanku dhahdaye waxa lagu darayaa aniga uma soo jeedinayo iigulamana to in lagu daro dabar fara badan oo dabra saxaafadda laakiin waxaan u baahannahay in lagu daro wax badan oo haga saxaafadda oo lagu daro ethicska maxaanku dhahdaye saxaafadda qodob maxaanku dhahdaye annaguna waan garawsanaynaa idinkana waxaan jecelahay inaan ku wada shaqayno shirkani markuu dhammaadana waxaan jecelahay xootiya waan u sheegay guddoomiyaha wejina waan kala hadlaynaa wasiirka warfaafintana waan kala hadlaynaa dee qoladaydan xidhxidhaa waa qoladayda wasaaradda iyo booliiska marka waxaan doonaynaa brogramka iyo arrinkaa inaan ka wada hadalno iyo qolada wasaaradda marka waxaan anigu soo jeedinayaa ila saxafiyiin baa tihiin qaranka sharciyadiisa yaa u xil saaran waxa aynu ku magacowno information iyo saxaafadda yaa u xil saaran dee wasaaradda warfaafinta ayaa dastuuriyan u leh idinka iyo wasaaraddana waxay u baahan tahay code aa ku wada shaqaysaan ayay da u baahan tahay ciidankii biliiska ahaa iyo wasaaradda daakhilgana waxay u baahan tahay qaab aa ku wada shaqaysaan idinku dee saxaafaddii baa leedihiin telefishinadii baa leedihiin caantan yari markuu dhaco saxaafaddii baa sheegaysaan annaguna ashkataanu halkaa ka joognaayo cidna ka qoraysaa de ma jirto oo qolada markaa sharcigii loo diray iyo ilaalintiisi iyo dabagelkiisii waa biliiska qoladana jeeraysaanada waa annaga soo maha marka inaan isla dhaweyno inay isjirjirin inaynu arrin ka wada yeelano arrinkaana waxaynu u baahannahay inaynu isla hagaajino anigu qodob kalena wasiir waan soo jeedinayaa qolada ururada saxaafaddana waan jeedinayaa ilaa iyo imika waxa qaba xeerkii saxaafadda soo maaha xeerkii saxaafadda waynugu qaba qaranna waynu nahay inaynu xeer saxaafadood yeelannana waynu u baahannahay ya haddii aa idinku u aragtaan oo saxaafadda madaxa bannaan ah xeerkan saxaafadda in idinka laydiin samaynaayo oo idinka cunaha laydinku qabanayo oo idinka laydinku caburinayo oo idinka dariiq laydinku xidhxidhan laydiin samaysanayo waa dee mushkiladiisuu leeyi haddii annagu aanu aragno waar balaayadan yaryar ee kamaradda iyo bahalka yar ee miiro sidata xeer isaga sameeyana de waa mushkilad kale marka waan horta labadaa meelood inaynu labada aragtiyood meesha ka saarno soo maaha labada aragtiyood baynu meesha ka saaraynaa labada aragtiyood maxaynu ku bedelaynaa aniga waxay la tahay labada aragtiyood inaynu ku bedelno xeer qaran ah berita dee maxaanku dhahday guri barwaaqo wasiir noqon maayo mid kalaa da noqonaya anigu da noqon maayo mid kalaa noqonaya musabixi madaxweyne joogi maayo mid kalaa noqonaya xuuta joogi maayo intiinani joogi maysaan waxaa la inaynu samayno xeer qaran oo qarniyo sii jira oo qoloba qolada dambayse wax kasii habayso waynu si wanaagsan u habayno oo ay idinku qayb ka noqotaan aqoon-yahankeenna looyaradeennuna ay qayb ka noqdaan xukuumaddana ay qayb ka noqoto oo ay hagto wasaaradda warfaafinta ilaa iminka saaka waxaad ka soo qaataa haddii layna idhaahdo madaxweyne ma jiro wasiirre ma jiraan dastuur ma jiro baarlamaan ma jiro sharci ma jiro yayna kala hagaya sharcigu de waxbuu kala hagaa ya waxaan la yidhahdaa law and orderku waxa weeye waxbuu hagaa nidaamku inoo kala sameeya haddaynu waxaba isku sii dayno dama socon karayno aniga waxay la tahay aynu xeerka aad u samayno way joogaan nimankii wariyayaashii hore veteran journalistkii hore way joogaan waa kuwa halkan fadhiya halkaa waa kuwa soo fadhiya raggii somaliland bilaabay raggii ilaa iyo tii
soo socotay xeerkaasi wuxuu ku jiraa ilaa iyo imika isfahmi waabuu ayuu ku jiraa isfahmi waaga da waynu ka saaraynaa idinkuna waydun isa soo ururin wasaaraddaynu la tegi qoladayadan maxaanku dhahdaayey biliiska iyo wasaaradda daakhiliga waanu idinkala qaybgeli maxaanku dhahdaayey garyaqaanka dowladda wuu inagala qaybgeli looyarada maxaanku dhahdaayey madaxa bannaaneed dalka wuu inagala qaybgeli ani waxay la tahay xeer aynu ku faanno oo qaran ahaan wax inoo tara oo saxaafaddeennu raalli ka tahay oo samayntiisa ay qayb ka tahay inaynu labadaa maxaanku dhahdaayey samayno waxaan ku soo ururin lahaa saxaafadda waxaan doonaynaa waa in haddaan saxaafadda la colowno dee qaranku maxaanku dhahday siyaasaddiisu mid sugan noqon mayso saxaafadda xukuumaddu col lama aha saxaafaddu col lama aha waxaynu u baahannahay markaa inaynu xoojinno weji hadda wuxuu sheegay oo ku halqabsaday ilaa waa oday weyn oo saxaafadda in badan ku soo jiray oo ragga wax akhriyanahe suxufiyiinta maxaanku dhahdaayee caanka ah iminka waxaynu u baahannahay dee saxaafaddeennu inay korto anugu shalito waxaa inoo soo ururiyey taariikhdaana ninka lagu yidhaahdo allah raxme yunis cali nuur wasaaraddana way taallaa archivs horena wuu yaallaa saxaafaddeennan yeman iyo soomaaliya labadaba warka inta laga soo duubaa hargeysa laga jeedin jiray waa ilaa 1942 saxaafaddeenna xoogaa idinkoo aad raalli oo ah waxaynu doonaynaa in la koriyo wariyayaal caanahi dawa inay soo baxaan qaarna waxay ku habsaamayaan arrintii weji joogay waan ka cadhaysiiyey jiq baan ku siiyey iyo cunahan qabtay qaarna waxay u baahanayaan wariyayaal da la yaqaano oo articleskooda la akhristo oo nin waliba column leeyahay hadda iminka ninkan odaygahe koye column buu leeyahay waa maalinta columnkiisa uu qoro kenya waa la wada akhriyaa waa la wada akhriyaa waxaa la yidhaha kooyaa qoray idaacadna wuu leeyahay ilaa 5 milyan oo qof laga dhegeysto telefishonna wuu samaynayaa waxaan jecelahay wasiirkuna programka aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waa saxaafaddeena iyo isaguna inay xidhiidho wax badan buu ayuu idin taraya qodobkaa kaga baxaya waxa weeye waa qabyaaladda waana tii la sheegay timacadde muxuu yidhi dugsi mele qabyaaladda waxay dumisa mooyaane haddii imika laynoo hayo qolo qabyaalad janno yar ku samaysatay iyagaynu wada noqonaynaa waynu gelaynaa haddaama bannaankaynu joogayna miyay jannadaasi jirtaa waxaynu u baahannahay markaa qabyaaladda ummadda in lagala dagaalamay u baahan tahay ciddii ugu badnayd ee ka dagaalamaysayna waa saxaafadda maalin walbana jaanis waxaa siisaan qolo qabyaaladda maxaanku dhahdaayee arrinteeda baromood garaynayso arrinkaa waxaan soo jeedinaynaa macal uruuradiinnu in dib looga arko dee nin waliba wuxuu idiin yimaada aydaan iska sii daynin intuu lacagta iska bixiye wixii aan viable ahayn oo ethics journalism ahayn oo national interestkeenu uu ku damayo there is no reason de inaad dumisaan midda kale xagga cadaaladdana dab kuma wanaagsan idin qoladiina saxaafaddu iminka halkan wasiir ba hadlaaya waa ku dhilaysan akaya caynkaas madaxweynuhu waxaasoo qabta war qoladiina saxaafadda waxa kharimo samaysa maxaa iyaga ugu dhili weydeen su-aashaasi soo isweydiin maaha waa midda labaad waa ka hadeerta wajiro ku halqabsanaya iminka waxa weeye waxyaalaha qaarkood waxaad moodaysaa inaynu kasii baxayno b b c da waynu kasii baxayno idaacadaha maxaanku dhahdaye waxaa la sameeyaa maxaanku dhahdaye debates baa la sameeyaa maxaa idinka idiin diiday inaad debates samaysaan ka midaysan tihiin oo soomaaliya iyo somaliland soomaaliya halkay maraysaa somaliland halkay maraysaa nabadgelyadeenu halkay maraysaa international maxaanku dhahdaye bulshada halkaynu kaga xidhanay anigu waan tabaya arrimahaasoo dhammi inay maqan yihiin waxaa kaloo u baahan dee inaa arrimaha diinigaa aydu qayb weyn ka qaadataan in arrimaha dhaqankana a qayb weyn ka qaadataan arrimaha socialkana a qayb weyn ka qaadataan marka waxaynu u baahnay in brograamyad badan dib la isugu celiyo idinkuna aad dib isugu celisaan xukuumaddana la soo martaan diyaar baanu nahay inaanu idinla qaabayno
marka arrimaha nabadgelyada ka hadlaysaan inaanu cid idiin soo dirno saraakiil biliis oo arrinta aad iyo aad u taqaana rag wasaaradda maxaanku dhahday daakhiliga ka tirsan odayaal horoo maxaanku dhahday sii jiray barnaamijyada tacliinta waan idin wasaaradda maxaanku dhahday tacliinta deegaankeenii buu saboolaya dhuxul baa liqday marka anigu waxaan soo jeedinayaa waan ku soo ururinayaa saaxiibayaal hablaha iyo inamadaba waxaynu u baahan nahay horta kow labada inay meel isugu tagaan xuutaa dagaalamaya haddii la idhaahdo inan chairman ha laga dhiga habluhuna inay ururkan saxufiyiintu aa meel isugu geysaan habluhuna waa kuwii shalita cabanayay ay qeyb wanaagsan ka yeeshaan dabadeedna aynu isku dubaridno arrimaha aynu u baahannahay inaynu isku hagaajino oo idinkuna dhufayskana ku jirtaan aan ka soo baxdaan annaguna kayaga waanu ka soo baxaynaa dabadeedna aynu arrimo badan isu keenno isla hagaajino aad iyo aad baa umahadsantiin marka waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo oo halkan inooga soo jeedinaya mowduuca doorka afka ama luuqadda ee warbaahinta ayuu halkan inooga soo jeedinayaa بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين كسوق القواشة وكمل هاي مستر كوغي who is a brother and a friend of Somaliland iyo dhammaantood madaxda ay nala joogtaba iyo wariyaashaba aad iyo aad baa marka hore u salaamantihiin maanta waxaan ka hadlayaa afka marka afkaan ka hadlayaa waa afka Soomaaliga iyo warbaahinta Soomaalida dhibaatada ay weliba ku hayaan marka hore waan isweydiinay weli ma isweydiisan af waa maxay af laysma weydiiyo af waa maxay halka waxaan ka maqlayaa luqadda ereyga luqad waa af Soomaali marka luqadda afka Soomaaliga marka tiraahdo ka waran waa afka Soomaaliga hadalkaas ma hadal saxda afka Soomaaliga af iyo luqad iyo language iyo lingua waa isku wada mid iyo yasiig oo af Ruush waa wada afun marka haddaad kaagii ku kala dhakada ka saarto oo tiraa luqadda afka Soomaaliga ama language-ka afka Soomaaliga maxaad sheegtay adigoo leh afka Soomaaliga sidaa daraaddeed af markiisa hore waxa weeye waxa fariin ama xambaarsan ama aragti la isku afkarto haddii aan hadalka qofka aad u dirtay wixii aad u tabisay aanu garanin oo aanu kugu soo falcelin karaynin af maaha hadduu doon afku ha jiro hase yeeshee haddaanan adigu garanaynin ma sheegi kartid inuu waxaasi af yahay haddaan kugu idhaa kaakfaa safuud maxaan kugu idhi waxaa tidhi ba lagu yidhi soo maha ma garan kartid adiga af kuumaaha hase yeeshee qofka garanayaa hadduu ii warceliyo wuxuu aan garanayaa ama uu garanayaa inuu af igula hadlay sidaa daraaddeed horta marka hore waa inaad u aragtaa afku yahay agab loo adeegsado in laysku afkarto fariimana laysku tabiyo fariinta aad tabinaysay haddaba haddaana si tooso oo qofkii aad u tabinaysay uu garan laayahay dee kaas laftiisu meelka dhaceedu leeyahay dhibaatadeedu leeyahay tusaale ahaan waxyaabaha ay wargeysadeenna qoraan ee ay tahay inay ka waantoobaan ee maalin kasta aad la kulmayso waxaa ka mid a haddaan tusaale soo qaato beri dhaweyto ama maan joogin ee waxaa dhintay guddoomiyihii jaamacadda hargeysa hore cabdi haybe waxaa dhacday markaas wargeyskii maalintaa lasoo qoray waxaa la yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waa
maxamed axmed siiraanyo wuxuu tacsi u dirayaa aqoonyahan ka baxay ummadda reer somalilan marka waxaa la isweydiinayaa marxuumkii baa dhintay yaa tacsiga loo diraya ma marxuumkaa loo diraya mise ummadduu ka baxay baa loo diraya qofka uu ka baxay baa loo diraa dee qofka uu ka dhintay iyo ummadduu ka dhex baxay hadda waxaa inala jooga dad ajnabi ah waxaa jira dad af soomaaliga idinka badiya meelaha waxaan ka maqlaa af soomaaliga jaamacada loogama soo baxo PhD baa lagu qaataa af soomaaliga haddii markaa qofkii baranayey ama af soomaaliga yaqiinay uu wargeys ka akhristo oo uu akhriyo madaxweynihii baa tacsi u diraya kii dhintay ama qof marxuum kii dhintay muxuu u arkayaa soomaalidu inaan ummadda la mid baahayn oo ay iyadu qofka ka dhintay tacsida u dirto halka adduunyada kale qofkii ka dhintay ee dadkii uu ka baxay marxuumku tacsida loo diro wargeysyadu waa meelaha ugu badan ee wax laga barto ee aqoonta afku ka korodho haddaad waxaasoo kala tebiso ama aynu tebinno waxaad arkaysaa in inaanad ummadda wax gefi aad u sheegaysa ee aanad wax hagaagsan u sheegin tu kale waxaa iyadana jirtay inuu wargeys lagu soo qoray waxaa la sheegay 2 inan oo soomaaliyeed oo lagu wareeray dalka Malaysia labada inanee lagu wareeray maxay yihiin sheekadoodu waxay isugu soo shubatay 2 inan oo soomaaliyeed oo lagu weeraray dalka Malaysia marka qofkii akhristay ee shisheeyaha muxuu ku arkayaa carruurteennii wargeysyada aynu lahayn akhrista afka ka barataane maxay akhriyayaan tusaale kale waxaa laga hadlayay xamar ayaa war laga sheegayey waxaa la sheegay in ciidamo ka tirsan Amazon wuxuu ahaa guriga madaxweynihii carta oo ciidamada Amazon farataystay guriga ayaa farataystay ciidamadii Amazon marka waxa weeye goormuu gurigu wax farataystaa gurigaa la farataystaa ee dee gurigu wax ma farataysto warku wuxuu ahaa in la yidhaahdo yani ciidamadii Amazon ayaa waxay farataysteen gurigii madaxweynihii carta afka jaadkaasa markaa aynu qorayno maxaynu qornay ereyada balu fiirsada hadda baryahan waxaa saxaafadda ka buuxday wasiir hebel baa afka furtay madaxweyne hebel baa afka furtay war goorma afka la furtaa sidee loo adeegsadaa haweenka way nala fadhiyaan ereygaa wuxuu baa adeegsadaa dumarka goorma haweeneed waxaad maqlaysaa idinkoo iga raalliya hooyooyinku marka ay umulayaan ee xanuunku ka saahid caleeyo ayaa waxaa koray heblaayo afkay furatay daadmiis waxa weeye way xanuun baa haya markaa way qaylinaysaa way ooyeysaa of course markaa waa xanuun baa jira laakiin nin madaxweynaha baa afka furtay iyo wasiir baa afka furtay warba ka xishood oo waxyaabaha qaarkood ha adeegsanina waa inaad taqaanaan ereyada sida loo xusho haddii aad qoraa tahay rag badanoo qoraya meesha fadhiya xulashada ereygu qiimaheedu leeyahy tusaale ahaan haddii aad doonayso inaad sheeko noo qabto oo aad dhaqankii miyigii doonto inaad tagto oo tiraa reer baanu u soo hoyanay maksa caana naloo lisay caanihii baanu cabnay halka waxaan ka garanayaa nin afka yaqaan ahayn caanaha lama cabe waa la dhamaa marka halkaa waxaad ku arkaysaa inay afkaagu jaban yahay xaaskaygii baa umushay xaaskaygii baa dhashay mahalba yani waxaa qoraysaan waa inoo fiirsataan ee aanay noqonin wixii kugu soo dhaca inaad iska qorto markaad qorayso xil baa kaa saaran qofka akhrisanaya
qofka ka akhrisanaya wuu kaa aqoon badnaan karaa wuu kaa af badnaan karaa wuu kaa yani heer sarrayn karaa laakiin haddaad istiraadun adiga cidiba kaama dambayso waa mid subxaan allah dhibaatada u badan ee maanta afka ku dhacay waxa u badan warbaahinta ama idaacada haato ama saxaafadan la qoraya haatee hadda beri dhaweyto b b c da waxay odhan jirtay shil baabuur oo meel heblaaye ka dhacay waxaa ku dhintay 10 qofood sheekadu iminka waxay maraysaa intay qofood ka tagtay waxaa halkaa ku dhashay 10 qofayaal 10 qofayaal ayaa ku dhintay marka halkaa waxay ku tusinaysaa in idaacadihii iyo wargeysadii afkii ay burburinayaan oo ay dhibaato weyn u geysanayaan taasina maxay tahay ma jirto cid tafatiraysa ama tafatirayaashii ee quraarisi ee arrinta ka dambaynaysay mas-uuliyadda waxaa iskale ragga quraarada ee u shaqeeya saxaafadda ka maaha inanka wariyey hadalkuu soo diray markiiba in la sii daayo waa in qoraalka la tebinayo la tafatiraa la shaqeeyaa sida ugu qurux badan loo soo daaya haddii kale afkii dhibaato ayaa u geysanaysaan haddaa idinku haysataan wargeysadiinu inaanay meel gaadhin dad shisheeye ah oo afka barta ayaa akhrisanaya hadalka keeni koona afkiinu siba maaha rag baa jaamacadaha dibadda ka dhiga af soomaaliga oo shisheeye ah oo PhD ku haysta maalin kasta kugula tartamaya xuruufta shibanayaasha laba laama ma kala taqaanaan waana dhibaatada u weyn ee isaga laftiisa ujeedooyinkii bedeshay maalin dhawaato rabadaantii hargeysa iyo burco iyo boorame ayaanu u diray inama wariyaal waxaan ku soo weydiiya tirada xuruufta afka soomaaliga maadiga rumaysan saddexda magaalo inaanu qof kaliya garan tirada xuruufta afka soomaaliga qof kaliya oo gartay waa hargeysa waa burco waa boorame ma jirto rag baa jaamacadaanu ka baxnay weliba secondary bay jireen intermediate oo dugsiyada dhexe kuwa hoose intuba way soo mareen mid kaliya oo garanay totally ma jirin marka maxaad wax iigu sheegaysaa haddaan waxbaba garanayn iminka ta iyo ta haddaan kula kala sheeg waxaan hubaa inaan halkaasi 2-3 qof mooyaane malaan intooda badan la garanayn ta oo sidaasa iyo ta iyo a maxay ku kala duwan taana taadaan akhri taana taadaan akhri maxay ku kala duwan yihiin horta waa inaynu aqoontii afka yeelana intayna waxba qorin haddaynad aqoontii lahayn maxaad wax ku qoraysaa okay ma hadallaa qiimuhu leeyahay afku muxuu yahay maxaa looga baahan yahay afka ma inagunba hadallaa noolaha kale ma hadlaa waa in afkii iyo qiimaheedii la yaqaanaa haddaan ku idhaahdo arigu wuu hadlaa ama geelu way hadlaan geelu ma hadle u ciyaabaad odhanaysaa haddaan ku idhaha maxay ku kala duwan tihiin ma garan kartid haddaan ku idhaha xoole arigu yani wuu hadalka intuu yaqaan wuu ku dhashaa ee ma barto waad ila yaabaysaa laakiin dadku kuma dhashaane way bartaan hadal iyo qoraal muxuu ku kala duwan yahay miyaan la bartaa mise waa lagu dhashaa waa inaad waxaasoo dhan ka jawaabi kartaa ood warcelin fiican ka samayn kartaa ereyada shisheeyaha ee aynu iska soo xambaaranayno aynu iska dhigayno inaynu ka muxuuha ilbaxnimo tahay yani dadka kale kaga balaysan tahay ha la joojiyo afkeennii baad dhibaato ku haysaa dhallinyaradan hay-adaha waxoogay ka soo qaata ee intay afar islaamoodu miyiga jooga tagaan odhanaya waxaanu samaynaa inaan ku samayno assessment ku samayno facekii horreeyey projectkii berigii dhowto baxay iminka markaanu idinka noqono proposalkii baanu doonaynaa inaanu submit garayno haye dee islaantaasi saasunba u eegaysaa qabarkan baasaydu ku dhacay muxuu ahaa dadkan xaggee ka yimaadeen dawladda xaggee laga soo diray dadkii waxaa wax ka qori lahaa ee dadka dareensiin lahaa dhibaatada afka lagu hayaa waa idinka laakiin dawladda waxunba ka sheega taqaanaan waa aniga sheegay dadka dhibaataysan ee dhaxanta jooga waxba lagama sheego qof yani nimanka gawaarida leh 300 oo kilomitir beeran awar buu hargeysa ku soo gelaya qaadlu
cid walba halis buu ku hayaa qof keliya weli ka qoray wargeys keliya ka hadlay oo ninkaasi ha laga qabto meesha ma jiro maalintu cid laayo maktub baa la soo qaaday yaqaanaa laakiin lagama hortegi karo dhibaatada uu markii hore geysanay waxa weeye indhaha wada siyaasi ma nihiin wargeys kasta soo qaad 12 wargeys baa ka soo baxa waa isku qaab bogga u horeeya koonaha madaxweynaha ku sawiran ta kale hoostu ku sawiran ta kale dhexdu ku sawiran ta kale inuu ku sawiran waa isku mid bogga kale waxa yeesiis ka ku xiga oo aflaamtii ka ku xiga oo ciyaartii wax alla wuxuu ka fadhiyo ummaddu wada siyaasi ba dad baa u baahan in suugaanta bartaan dad baa u baahan in ay dalka waxa ka dhacay ogaadaan dad baa u baahan in wax ka weli ma hayo aragti curisa oo lagaga hadlayo oo dadka loo soo gudbinayo wax lagu barayo wax lagu sheegayo carruurtu maxay wax ka barataa maxay ka sheegtaa haddaanu afjirin saxaafadina ma jirto aqoon kalena ma jirto aqoontu waa afka gudbiya aqoonta haddaydan sidii la doonayay u adeegsanina ummaddan waxa way noqonaysaa ummad dhimatay waynu ognahay buwaag badan af Soomaali ma jirto ta u badan ee soo baxda waa wargeysyada waa inay dadku la qiimeeyaa oo dadka loogu tabiya ujeedooyinkooda intaasi ayaan ku soo koobi lahaa hadalkaygii haddii aad u baahataan casharo kale oo dheeraadana xilli kasta wasaaraddu diyaar bay idin tahay weliba anaa idin dhigaya oo idin baraya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu wasiirku mahadsan yahay mawduucaasi doorka afka soomaaliga iyo warbaahinta ayuu noo soo jeedinayay waad ku mahadsan tihiin kasoo qaybgalkiina iyo dhegaysigiina bareega ayaanu gelaynaa kabacdina qaybtii kale oo ah gebagabadii ayaa inoogu xigi doonta oo ah qaybtii ugu muhiimsanayd iyo warmurtiyeedkii ka soo baxaya shirkeenna labada maalmood socday aad baad u mahadsan tihiin أقولها سنة كان هرقلي عداني سحافة ترين سد بنقول هاي القرصون صدالك تابقلي أقولها سنة كان هرقلي عداني سحافة ترين سد بنقول هاي القرصون